السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalay waa idin salaam meel baad idin ka joogtaan haddii aad markii ku horeysay channelka soo booqday fadlan subscribe ii saar hore haddii ay la joogto ku mahadsan tahay maanta waxaan jeclaystay inaan idin la qaybsado afurka iyo sida u diyaariyo insha Allah haddii xadiidkani qalbigaaga galo uma leemay salaad subax inaad iska seexanayso wuxuu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam bashiril mashaa'iin u bushaaree kuwa socodka badan fi dhulami gudcurka soconaya ila almasaajidi masaajida u soconaya binnuuri taami nuur dhammaystiran inaan siinayo u bushaaree yawma alqiyaamah maalinta qiyaama inaan siinayo u bushaaree bal fiirsaad waa ogeysiis fawqa alcarshi ba ilaahay ka soo dhiibi nabigaa loo soo dhiibi عليه الصلاة والسلام waxaan samaysanaa fooliyadii meeshan waxaan ku haystaa 2 koob iyo bar oo bur ah waxaan ku darayaa nus qaado cusbo ah iyo qaado saliid biyo yar oo qandac qasaa fooliyada aad u fududahay cajiinka aadna yuusan kaaga adkaanin yuuna jilicsan noqonin fooliyada aad u fududahay 4 xabba u qaybin doonaa hal mar isa saari doonaa insha Allah carabkaaga ka adko carabkaaga iska adko Soomaalidu waxay tiraahdaa isuma jeeda islaan laay qof baa isagu qof kastu wax ka sheegay waa maagaya wuxuu ka sheegaya kan waa kan isaga Soomaha cibka saliin waxba ma laha ummadina afkaas ku baabi'iyay sida awgeed muslimkii waa laba qayboodo waa qof muslim ah ila rasuulku markuu leeyahay al-muslim man salima al-muslimuna min yadihi wa lisani muslimka dhabtay waa qofka afkiisa iyo adinkiisa umadu ka nabad galaan mid baa jira muslim ah ومسلمينتي كمدة وعبادي سنية ومحان كو إلى أفكي ساس قف بني آدم وحبا ميلي لكن قعنتو بلايك قبا دلك فيرك وشا دعا بلايذا قعنتها سمد كوكا قسي من قعنتو وحبا كما السمينا يئه أفكو كفلين نار أفوف والنار أفوف أفكا هدو كلا قاضو إنكارها كسو بحية بلين كريميسي حنتا وحسكو درك بلايذا مساج كان سفكرو كتشرا هدو صوبحنا إذا عجزوا الشيطانية أنت نزل أوتها أن أمضى صدام بصوت قبنا أن نتوجد ما كسميد والبمحان كوي هذا تعليق كسي دينية كان ساسوي كان عين كان وي مركب قف كاسي السجا أقمش وقدام بين عبادة إلهي كرب وكم مشغولين اللهم انصر إخواننا المستضعفين على أرض فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين على أرض فلسطين اللهم شد أزرهم وسدد رميهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لإخواننا المسلمين المستضعفين في غزة اللهم احقن دماءهم اللهم صن أعراضهم اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحتهم اللهم احفظهم باسمك الحفيظ اللهم اكلأهم بعنايتك يا رحيم اللهم أعنهم ولا تعن عليهم وامكر لهم ولا تمكر عليهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم اجعل لأهل فلسطين النصرة والعزة والغلبة والقوة والهيبة في قلوب أعدائهم اللهم اشف جرحاهم وأطلق أسراهم اللهم استودعناك فلسطين شعبها وسماها وأرضها وبحرها وأهلها جنودها شبابها نساءها أطفالها اللهم احفظ إخواننا في فلسطين بحفظك وأيدهم بنصرك أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما التاجر هو أما مقع هو أما مسكين هو إن إلهي الرالق لسبب قوله إذن قف لبو قولي سنكره بما عنده من إمكانيات بكو قولي سنكره وحاد هاي ستاينتو الليقي هاي هداد مدحوينة عدالة الدينية أخلاقية رقنية وناك ودوات قولي سنكرتها الإمام العادل تضبط الجنة عرش الرحمن هرسانيو كمدي هذا نندل يرى أو دور صورة أخلاق لود قولي سكرتا شاب نشأ في
cibaadati illaah waad guulaysan kartaa haddaad qof yacni mustawaha nololeed ee aad joogto guushu markaa kuma xidhna adduunka inta kaa soo gaadhay magac iyo maamuus iyo hantina guushu kuma xidhna waad kadeednaan kartaa adigoo madaxweyne ah waad kadeednaan kartaa adigoo taajira waad kadeednaan kartaa adoo magac iyo maamuus leh waanad kadeednaan kartaa adigoo faqiir ah intaba kadeedku This dua is for my queen, my mother. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. O Allah, protect my beloved mother with your care and guidance. Guide her on the path of goodness and righteousness. Ya Allah, make her a strong believer in you and elevate her rank in this world and the next. I ask you, O Allah, to brighten her path with knowledge and wisdom. Grant her patience and resilience in all her affairs. Please allow me to be a source of happiness and peace for my mother. Please allow my relationship with my mother to last this life and the hereafter. Please allow me to be the best son or daughter for my mother. Please keep the devil and bad people away from the relationship with my mother. Keep our bond strong through life's struggles and disputes. O Allah, protect my mother from all harm and adversity. O Allah, you are the helper of the weak, so grant my mom strength and determination to overcome any of life's challenges and allow her to be content in life. O Allah, I fully trust in you. You are the all-hearing and the all-knowing. Please hear my prayer and grant my mother success in all aspects of this life and the hereafter. Amen. waxaan samey doonaa burkuuskan aad u jeclaa inaan qaxwada ku cabo afurka kadib aad iyo aad u fudud badan yahay hadhowna kor waxaa ugu shubi doonaa karameel aad iyo aad u macaan badan yahay hadda waxaa ka samey doonaa waa 2 koob oo bur ah qaado sokor ah nus qaado cusbo ah iyo qaado bakin ah biyo yar oo qandac u qasa insha Allah waxaa qamiiri doonaa hal saac kadibna hore ayaa ka dubi doonaa saliid aad kuleel u ahayn qabowna u ahayn dhexdhexaad ku dubi doonaa insha Allah burkan aad u fiican ka faa'iideysto nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam acmaal gaara jirta oo bishan noo sii tilmaamay waa kuwa ugu culus traininka lagu qaato traininada ugu culus kow deesagu waa ramadaan waa wada garan iyada in la soomayo waa garan waxyaaba ugu culus ee bishan la qabto waxa kamid ah nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam waa bishu malakul jibriil quraanka la daraasayn jiray malakul jibriil baa u yimaada nabi maxamed iyo malakul jibriil baa waxay daraaseeyaan kitaabka alle ilaahay hadalkiisa idan bisha tariiba culimadu yiraahdaan waa bil qofka muslimkii u xidhxidho inuu ku tadaburo ilaahay kitaabkiisa fahmo ilaahay muxuu nolosha ka rabaa inaan sameeyo waa aakhir wasiiqa samada ka soo degta oo binaadam lagu saxayo aakhir hidaaya absolute value binaadamka loogu talagalay noloshiisa oo dhan inuu ku balangaraysto ka waran madaxweynaha waddankan ama ra'iisul wasaaradda waddanka haday waraaq ku soo dirto maalin walba aad akhriday laakiin weliga aanad fahmin waxa lagu oranayaa qofta yara khabal wuxuu dhimayin baad u ekaanaysaa waraaq adiga dantaada ka hadlaysa oo ku soo degtay oo aad gacanta ku haysato oo weliga aad akhriyayso aad fahmaynin inaan quraan dhan fahamna daaye faatixadayna fahmi weyn maalin walbana 17 jeer akhrino idan nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam bishan wuxuu mudnaan gaar siin jiray quraanka iyo akhriskiisa quraanka iyo daraasayntiisa walidaalka waa culimadii waaweynayda muslimiinta rakamidi hatta culumta kale ay dhigi jireen way joojin jireen imaam maalik oo soo xidhxidhan jiray xadiiska nabiga sidoo u dhigayo ayaan bishatan culamo badan baa cilmiga kale dhan joojin jirtay waxay oran jireen bishan waa bishii quraanka akhriskiisa badiyaan imaam shaafici waxa laga sheegaa waxayna inagu hawaysanayna inuu bisha 60 jeer quraanka dhameyn jiray soo naqliya idan bishani waxa koowaad inagana waxa laga yaabaa imaamka jisku tukiyaan la yiraahdo masaajidkaas waa masaajid salaad badan oo muxuu sameeyaa jis quraan ku tukiyaa waxa la inaga rabay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam habeen buu salaad galay dabeetana saxaabi baa u yimid wuxuu shir iskaga xidho waa kan nabigiiba tukanayay waa ku xidha dabeetana nabigu alayhi salaatu wasalaam faatixadii markuu ka baxay baa al-baqara bilaabay waxa sidii yiri meeshaan wax ku haystaa waa 2 xabo oo cambo waaweyn oo soo jaro soo dhaqday insha Allah cabitaankeeni maanta ku afureyna waayay ismuudiga cambaada u jeclahay meeshaan waxa ku haystaa digirtan waxa la dhigay biyo qandacadi taqriiban wuxuu leeyahay muddo 7 saacadood ah hadda waqtiga waxa soo galay ashiid lahay waxa ku shiidoyaa waa jab basal ah 3 xabo oo toon 2 xabo basbaas cagaar ah iyo kabsar caleen iyo cusbo yar intaas uma ku shiida biyo aad u macaan badayay basbaaska daaris waa ka badsan kartaa laakiin qof maanta dhan soonaay basbaaska inuu iska baday ma aha insha Allah اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت
إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان هليك لك يا رمضان حنا صوامك يا رمضان نور علينا يا رمضان يا رمضان ليلك ونهارك يا رمضان بركة ورحمة يا رمضان ذكر وتلاوة يا رمضان يا رمضان رمضان كريم. اللهم ارحم أمي كما رحمتني صغيرا اللهم أسعد أمي كما أسعدتني كبيرا اللهم تقبل من أمي أعمالها صغيرها وكبيرها اللهم اجعل أمي من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأكرمنا بالفردوس الأعلى من الجنة يا كريم. sidan ayaa Afrika u soo diyaariyay hadda ilaa intaan soo gaartay fiidiyowga kaaga mahad celinaya fadlan haduu ku cajabi laag isaar reeda qad commentiga noo soo wadaag asxaabtaada la sii wadaag afur wanaagsan salaamullaahi calaykum.